runtii mahadoo dhani waxay u sugnaatay Allahiina abuuray balse waxaan rabaa inaan u mahad celiyo soo dhaweynta karaamada qabanqaabada sharafta mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay iyo dhammaan bahweynta Soomaaliyeed oo runtii itaabsiisay inay tahay arrin qeyra ugu yeelanaysa ina tusaysa inaan leeyahay tolweyne Soomaaliyeed dhibaatada ay gaartayna aan maaragtay iga baabiinayso ku ilooba inkastoo runtii arrintaas dareemaysa haddana waa xanuun jira in qof Soomaaliyeed oo muwaadin ah lagu xiro dal kale laguna xiro dambi uusan geysan waa wax dhibaatadeeda leh welina uu baaqi ku yahay shakhsi runtii ka soo shaqeeyay arrinka la dagaalanka burcadbadeeda oo ka socday maamul goboleedkii Ximan iyo Xeeb qaab federaalna u shaqeeyay labadii dawladood isaga dambeysayna wakiil uga ahaa arrinkaas oo runtii ka soo shaqeeyay in waxaan baaba'aan oo la maaragtay la jirid siibo burcadbadeedii baaqi buu ku yahay isagoo waxa lagu haysto ay yihiin waxaan caddayn la been abuuray markii laga daba tagayna la ogaaday laakiin dhibaatada jirta ay tahay kaliya waa ka xoog badanahay asagana waxaan leenahay ilaahay ka soo saaro wixii aan u qaban karna oo qabanayna bisraaxa waa run sida hore looga dhawaajiyay xarbu waxa la yiraahdaa waa qayb kamid ah naarta walaalkii Cabdi Qeybdiin wuxuu sheegay 4 maalmood inuu xirnaa laakiin waxaan ku kala duwanahay kaliya isaga dad gobaha xiray aniga laakiin gumbay ahaan dadkii xiray rag waxa ka waqo runtii dhowr iyo 20 sano aan ku noolaa dunida qurbaha inkastoon aqoontaydu aysan ahayn cilmiga sharciyada haddana qof wax ka fahmaya ahaa at least maan arag weligay dalka sharci xun ka musuqmaasuq badan ka cadaalad daran weligay maan arag waa dalka kaliya ay adduunku ka dhici karto xataa hal yiraahdo meelaha maaragtay ay xukuumaan dadka kale taliska ah waa dalka kaliya ka dhici karto qofka in la yiraahdo asoon dambi lahayn waa iska xiranaynaa waxaan haysan karnaa intaan rabno adduunka kale qaacido waxaa ka jirta qof walba waa bilaa dambiile ilaa dambi lagu soo cadeeyo laakiin ayaga qaacidadoodu waxay tahay qof walba waa dambiile ilaa dambi la'aan lagu soo cadeeyo adduunkii kale oo dhan ay khilaafeen haddana saas ay tahay alxamdulillah ilaah baa mahad iskale igu dhiirigeliyey inaan ku qanco qadartiisii dhacday inaan ku qanco aanan yaqiinsado waxaan wax qoranay ahaayeen kastoo maalmihii ugu horreysay asqanjuruufan aan dhahay tiicii maa tahay ma nooshahay meeshaan ma joogi kartaa laakiin waxaan dareemay inaan kasii qaada adkaysi inkastoon kasoo shaqeeyey dhul adkaysi badan oo walaalkay mahad salaadii dhulkay kasoo jeedaan ma aha dhul sahlan horaa loo dhigi jiray adiga mudug roob haddaad tahay mudug ma ku doy lahayd marka dadkaas aad arkaysaan oo magaaladii sidaan ogahay ka dhigaya meeshay kasoo jeedaan oo dad ka daran ay baaqi ugu yihiin ayaan muddo soo xukumayay marka laakiin waxaan ka qaaday runtii adkaysi waxaan ka qaaday dareen ah in dalba ilaahayna siiyey dadna ilaahay waa naga dhigay inaan ku far adeegna kan sababtoo ah maxay ahayd maamahadii carabiga ahayd yaa ayuhal wacid nafsak يعني nin wax sheegaya waa waxaan sheegayo qaado laakiin dhaqankayga ha raacin dabeecad hay leeyahay western countries waxaad maqashaan waxa aan la yiraahdo nooga yimid dhulkan ka imid xuquuqda dumarka haddaad fiirisaan baarlamaanka Mareykanka iyo baarlamaanka Soomaaliya maanta labada goleba waxa dumar badan baarlamaanka labada gole haddaad fiirisaan xuquuqda dadka afkaarta kala duwan leh waa wax la sheego inta badan laakiin dalalkan unbay yiraahdaan ay ku xoojiyaan yiraahdaan sameeyo laakiin ayagu ma sameeyaan inta badan
marka waxay ku tusinaysaa dal baan leenahay alxamdulillah maantana waxaan gaarnay biseel siyaasadeed meesha muxaafid iyo mucaarad ay wada fadhiyaan oo ay kaftamayaan oo hadalkii uu isku dhiib yahay iyo waxa uu Axmed Qorqor ku tilmaamay Far Sacuud ana ma baqaan Far Sacuud sida loo waxay waxay ka dambeeyaan marna waxyaabo badan ay ka dambeeyay wax badan ay ka dambeeyay waxa weeye in maaragtay lagu doodayo Soomaalidu ma wadana meesha ka timid marka la eego in lagu doodayo waxana saxan iyo waxana qaldan iyo qof intuu hadlo uu leeyahay haddana la wada fadhiyo la kala xanaaqsanayn waxay ku tusaysaa biseel siyaasadeed oo la gaaray bisraahana waxa weeye in radaan kaftamoorta shaabadyan isla markiiba lagu dhufanin oo dhinaca sababtoo ah 3 maalmood ah xuquuq u leeyahay qofka martida ah marka 3 maalmood intaan ka xansanay dadku waxay yihiin qaar aan salaamayo noqon inay mucaarad yihiin ama muxaafid yihiin jira marka 3 maalmood la isiiyo wixii ka dambeeya qofkan shaaha lacab lagu soo waraa hadii la rabo markaas la yiraahdo balse bisraaxa waxaan qabaa horumar badan baa la gaaray waxa kamid ah maanta Soomaali waxay leedahay aqal sare aan u mahadnaqo dadkii sameeyay iyo ka qayb qaatay processkii iyo gudoomiye Cabdixaashi iyo gudoomiye ku-xigeenka nala jooga mudan Abshir shaqo badan oo fiican qabtay waana aqalkii ugu horeeyay waa wax wanaagsan waxaan yeelanay baarlamaan laga soo dooranayo deegaanadii awal ma ahayn sidaas inkastoo la gaari doono hal cod iyo qof waa horumar la gaaray waxaan yeelanay dawlad isu dhiibaysa oo aan maaragtay isu diiday oo oranaysa hadii liiga guuleystay maaragtay haba la duro processka doorashada iyo waxa la midka laakiin meel kasta ka jirta adduunka dawlad la gaaray baa jirta anigu waxaan leeyahay nimcadaas aan haysano yaanan luminin oo ah in maanta dawlad jirto in wanaag socdo yes dhaliilay leedahay dhaliilahana waxa lagu sixi karaa miiska korkiisa lagu sixi karaa ama waxa la sameyn karaa waxa la yiraahdo constructive criticism oo maaragtay wanaag dhali kara waxaan qabaa marka inay wanaagsan tahay dadka maanta shaqeynaya oo xilka hayana inta aan ka aqaan waa dad runtii aqoon u leh aqarina ah ama ha ahaadaan maaragtay golo baarlamaan ama ha ahaadaan aqal sare ama ha ahaadaan golo dawladeed marka waa nasiib aan yeelanay waxaan qabaa aan ku dhagno aniguna mar walba waa cad yahay warkaygu waxaan taageersanahay waa dawladnimo iyo midnimo iyo cadaalad iyo horumar taas ay ugu filan meel walba aan joogo yes waa maalinba meel ay soo marayso waa dhutinaynaa waana gaari doonaa meel buuxda laakiin process kasta oo la marayo waa process loo baahan yahay in la maro sida aan anigu arkaayo xilli waxa jirtay kala duwan oo la soo maray xilliyadii la soo maray xilli kastaba diiwaanka Soomaalida wuxuu ka galay inay ahayd mid loo baahnaa in lagu tawaabusho sababtoo ah hal maalin lama kaco lama ordi karo waxaan runtii rabaa intii aan xirnaa waxyaabo badan isbedelay dad baa timo u soo baxeen dad baa timo waayay dad baa dhintay dad baa maaragtay dhashay laakiin mid waxa jirta runtii igu dheelasay murugo aad u badan aan uga naxay oo ahayd dhacdadii October 14keeda runtiina aan Ilaahay uga baryayo dadkii ku dhintay dhacdadaas iyo intii ku dhaawacantay intii wax ku soo gaareen oo bukaan socodka waliba hadda ah oo dad badan oo waxa jira macna ahaan iyo aqal ahaanba dhibaatada soo gaarsiisay waxaan leeyahay Ilaahay faraja u furo intii dhimatayna Allah u naxariisto waxaan qabaa inay tahay dhacdo aan la ilaawi karin sababtoo ah inta ugu maqaalka ah waxay ahayd dhacdadii ugu weyneed oo Soomaali ay ku dhimato inta la eeg ayay ahayd sidaan dareemayo marka waxaan qabaa in aan runtii la murugno arrintaas xasuusna aan ka dhigno inay maaragtay jirto hadii Ilaahay yiraahdo inta badan markaan meel ka soo istaago waxa igu taal shaabad ah galmudug waana runo anigu Soomaali baan ahay galmudugna waan ka ahay waa wax cad marka
حق بان ولا أنا كهذا ما أورانيو أنت ماذا حدث أصلاح وحول بوا أوكي عيال كسيدي مركز عنه يسمى له سيكليو يس واحد شراء دلات في عمر بسنتين أو قلب ذوقه وأنا واحد مقدس أهو ضفر أن كذا حيسو كوي تومن قبيلنا يكون شيء ماشي كت مع دبا بروسيس كذا أنا واحد بدن كوجا وهبينا بدن أنا قاعد قيد ما تسوق وصلينا الفير سوق اللي عجارنا مدبرا لكن أنا فاينل يكون شيء إني نقطه waxaan hadda maanta ah alxamdulillah iyaguna ragii iga dambeeyana waa soo gaarsiiyeen meeshii waxaan qabaa marka aan isugu tagno oo lagu goobto inay noqoto meeshaas meel wanaagsan dadka aqoonta saaxiibka u leh ehelka saaxiibka u ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas ma ahidiin kuwo maaragtay xamar markay yimaadaan iloobaya meeshii waxaa la rabaa wasiirada iyo xildhibaanaduba inay ayadana maalgashi ku samaystaan maskaxeed si ay u noqoto la isugu soo jeedo aniguna insha Allah intii karaankay ah waxaan ka shaqayn doonaa wax walba oo wanaag ah oo Soomaali maaragtay hormarinayo wax walba oo wanaag oo galmudug hormarinayo insha Allah waan ka shaqayn doonaa sababta waxaan soo arkay waxa la isoo geliyay awal ba anigoo maaragtay Soomaalinimo iyo igu jirtay ayaa haddana xabsiga wuxuu isii baray inaan meelaan xaarxaarano ay ka wanaag badan tahay meel kale sababtoo ah ayaga oo israbin dalkaasi ka qabiil badan Soomaaliya ka qabyaalad xun isku dilay dawlad markii ay dhalato ay ku heshiin karin 2 sano oo complete dawladdu kala taagan tahay anagu waxa laga yaabaa inaan ku heshiino amba magacyo u bixino mucaarad iyo muxaafid iyo nabad iyo nolol iyo maaragtay dalka iyo danta iyo dalka dadka iyo wixii la rabo loo bixiyo magacyo laakiin heshiisan ku nahay iyagu intaas laftigeedaysan heshiis ku ahayn marka waxaan qabaa aan ka faa'iideysano fursadaas aan ka shaqeyno maaragtay haddii ilaahay yira talada ugu dambayso kaftanka siyaasadeedna wuxuu ku ekaa meeshaan ku ekaa balse hal talaan bixinayo ah walaalkay Axmed talada uu soo jeediyo ah mucaaradka basbaas marsadaan aan waxaan is leeyahay taasina talo xun tahay sababtoo ah ma salaad haddii basbaas loo mariyo waa ka dheerayna laba qaban karo انت حتى هدي مرسدان اديك اذا كدheerayna marka lama qaban doono aakhirkii waxaan rabaa inaan runtii maaragtay waxaan rabaa anigoo maaragtay humble ah isla markaasna dareensan shucuurta aan qiyaasi karin aan dhihi lahaa shucuurta aad igu abuuraysa inaan idin mahadnaqo sida sharafta leh igu soo dhaweyseen magaaladeydii igu soo dhaweyseen Soomaaliya igu soo dhaweyseen dalkayga igu soo dhaweyseen igu soo baxdeen iyana muujiseen hili hoob inaad la kala taagneedeen runtii ducadiinii iyo maaragtay taageeradiinina waxaan ka dareemay meesha aan joogo maaragtay 1000 smiles ay u jirto sababtoo daaqada dabeel macana ka soo gali jirtay marka duceysaan marka waa dareemi jireen adinka idinka timid marka waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay thank you all hana la casheeyo